marka aad maqasho maanta magaciisa waxa aad dareemaysaa farxad rajo iyo niyad cusub laakiin dhowr sano ka hor Lamine Yamal Nasraoui Ebana wuxuu ahaa wiil yar oo reer Catalonia ah oo ay kala dhaleen hooyo u dhalatay Ecuadorial Guinea iyo waliba aabo u dhashay Morocco wuxuu ahaa ilmo dhoola cadeeya laakiin garoonka markii uu soo galo wuxuu u bedeli jiray masraxa mucjisada markii uu 15 jir ahaa waxa loo qaaday kooxda koowaad ee Barcelona kooxdii uu Messi ka tagay kooxdii uu Ronaldinho qurxiyay kooxdii uu Iniesta hagaayay balse Lamine Yamal waxa uu tusay dadka in ay sheekada wali dhamaanin wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu da'da yar ee u ciyaara Barcelona tan iyo 1902 ugu da'da yar ee u ciyaara Spain ugu da'da yar ee goolka dhaliyay xulka qaranka Spain iyo mid ka mid ah xidigaha ugu weyn ee lagu aaminay Euro 2024 isaga oo 16 jir ah Lamine wuxuu ku soo barbaaray Messi halkii ay ka baxeen Messi Xavi Iniesta laakiin farqiga ayaa ah in Yamal uusan waxba ka cabsan markii uu garoonka galo wuxuu wajahay daafacyada ugu khibrada badan adduunka sidii inuu haysto khibrad 10 sano markii uu xulka Spain u dhaliyay gool cajiib ah isaga oo 16 jir ah warbaahinta Spain waxay u bixiyeen magaca El Lajidi oo macnihiisu uu yahay ninkii la doortay waxa la oran jiray Spain ma heli doonto Messi balse waxay heshay qof leh maskaxda Iniesta xawaaraha Neymar iyo kalsoonida زيداني في الدرجة أيانا لها يمال يكتب البداية لقصة قد تكون أجمل من قيال يمال وحو قرية بلا وشيكا لغا يابا إنك قروح بدنتها من الأوائل ولي موسن قارن سيديدي توصنوا ولي ما عن حدي قانقارا مركا لو ايغ شرعي يوروب لكن وحو سعد أموجي إن حدقا أيسان كليئهن كووا وين جيركوذا بلسا أيهن كووا وين رياضوذا قلبيقوذا إيا مسكحذوذا مركو عيارا وماك عياريها المستقبل وحو إيجيها مستقبل كلفتيسا لغا يابا إن شانسان كدي ميسي ورونالدو أيسان سي جوغي دونين لكن مقع لامين يامال وحو كمو قندونا كوبادا عكتا إساقو دولا عدينا يسيدي حدق فرتيسا ku sabaraya taariikh cusub laakiin waa hadii bandhigiisa uu sii joogteeyo